بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ku guda jirnay casharadeenii anatomy and physiology waxaynu qaadanaynaa maantay ciwaan ka mid ah ciwaanada ka hoos baxa respiratory system waxaan qaadanayna structure-ka loo yaqaano larynx ama larynx larynx-ka waxaan ka bilaabaynaa marka ugu horeysa position-ka dabcan uu ku yaalo horta larynx-ka waxaa loo yaqaanaa voice box allaha meesha uu codka ka samaysmo waaye wuxuuna u dhexeeyaa dabcan pharynx-ka iyo trachea-da pharynx-ka waataan qaybinay oo u qaybinay saddex qayb nasopharynx oropharynx iyo laryngopharynx qaybta marka oo larynx-ka soo xigta waxaa loo yaqaanaa laryngopharynx marka laryngopharynx-kaas iyo trachea inta u dhexeysa ayuu ku jiraa larynx. Until puberty, there is little difference in the size of the larynx between the sexes. Ilaa laga soo qaangaarayo oo cunugga kasoo qaangaarayo wax size-ka oo larynx-ka farqi ahaan dhinaca size-ka farqi ahaan wax u dhexeeya ma jiraan oo rag iyo dumar gabar iyo wiil isku mid waaye xagga oo maaragtay larynx-ka size-kiisa macnaha ilaa laga soo qaangaarayo laakiin markii oo lasoo qaangaaro kadib thereafter it grows larger in males wiilasha ama nimanka ayuu maaragtay larynx ugu weynaanaya that means waxaa soo muuqanaya waxa la yidhaahdo prominence of Adam's apple bocorka ama waxa maaragtay la yidhaahdo bocorka oo soo dhuuban ee dhuunta ku yaala maxaa la yidhahdaa waxaa loo yaqaanaa Adam's apple aa loo yaqaanaa ama larynx aa la dhahaa marka waxaa loo yaqaanaa Adam's apple aa la dhahaa dabcan waxa waaye waa bocorka maalka erkaa soo dhuuban markin oo dhuunta markii la fiiriyo nimanka wiilasha markay qaan gaaraan kadib aad u soo muuqdo kaas waaye macnaa midka oo la sheegayo waxaana loo yaqaanaa Adam's apple aa la dhahaa waa larynx-kii oo soo weynaado oo more prominent soo noqday macnaa okay waxaan isbedel oo ku sameynayaa codkii oo noqonaya xoogaa culus oo deeper voice ayuu isku bedelayaa codkii oo matalan wiilka markaaseeto codkiisa soo weynaanaya structure-rada ku hareereysan larynx-ka sida haddaba mar dhaweeto ama maalin dhaweeto inaan u tilmaamaynay pharynx-ka structure-rada ku hareereysan ayaan sidaas lamida larynx-kana tilmaamaynaa superiorly kor haddii aad ka eegto waxaa kor ka xiga larynx-ka lafta loo yaqaano yaw bone waa laf kaligeeda oo cidna aanay ku maaragtay ku dheganayn wuxuu kale oo maaragtay kor ka xiga carabka roots of the tongue carabka qaybtiisa dambe jiridiisa dambe waayo inferiorly waxaa hoos ka xiga larynx-ka waxaa kusii daba qabsan trachea-da horay markaa fiirisid anteriorly waxaa ku dhegan murqaha ku xirma yaw bone-ta ama lafta la yiraahdo yaw bone-ta iyo muscles of the neck ayaa anterior-ka ka sameeya posterior-ka waxaa ka sameeya ama gadaal ka sameeya laf dhabarada especially cervical vertebra 3 ilaa iyo cervical vertebra 6 geesaha haddaa fiirisid lateraliska waxaa ka xiga qanjirka weyn ee la yiraahdo thyroid glandiga labadiisa lobe dabcan right lobe iyo left lobe inta dhexdooda ku aadan yahay isagu structure ahaan haddaan fiirino structure-kiisa waxa ugu muhiimsan oo laga tilmaamo waxaa kamid ah cartilage isaga dhan ba xoogiisa waa carjow larynx wuxuu ka kooban yahay several irregular shaped cartilage xoogaa dhan ama koox dhan oo maaragtay cartilage ah isku dhegdhegan midba mid kale uu ku dhegan yahay waxaan isku haya badanaa xuubab iyo ligaments cartilageska ugu waaweyn waa kuwaana waxaa ugu horeeya mid la yidhahdaa thyroid cartilage oo hal xaba ah cricoid cartilage oo dabcan yaalin cartilage ah oo hal xaba ah arytenoid cartilage oo laba xaba ah epiglottis ama elastic fibrocartilage oo hal xaba ah intaas oo nooc oo cartilage ah ayuu ka kooban yahay larynx-ka mid baan u dulmari doonaaye waxaynu ka bilaabaynaa thyroid cartilage thyroid cartilage waa midda ugu prominency-ga fiican oo aad u soo muuqanayso it's the most prominent of laryngeal cartilage waxay ka samaysan tahay maadada la yiraahdo yaalin cartilage
طبعا cartilage-ka ayaa wuxuu ka imaadaa raw material marka la fiirsho waxa laga soo sameeyey nooc ka mid ah hyaline cartilage waxaa loo kala qaybiyaa hyaline cartilage iyo fibrocartilage iyo elastic cartilage marka hyaline cartilage xoogaa qaybaha adeega iyo kuwaas badanaa ayuu noo qaabilsan yahay. It lies to the front of the neck wuxuu ku baagan yahay thyroid cartilage-ka qoorta qaybaheeda soo horeeya. It is anterior wall darbigiisa hore projectis wuxuu ku jeedaa la leeyahay soft tissue of the front of the throat qaybaha jilicsan ee cunaha ayuu ku aadan yahay. marka meeshaas marka uu maraayo wuxuu sameeyaa waxa la yiraahdo laryngeal prominence soft tissue of the front of the throat meelahaas oo kasoo dhex baxa waxa uu sameynaa marka dhuubnaan ama wax soo taagmaayo oo la yiraahdo prominence laryngeal prominence al dhahaa okay ama laryngeal prominence iska dheh. kadib marka waxaa dhacayo waxa la yiraahdo ama loo yaqaan magaca waxa la siinayo la yiraahdo Adam's apple oo ah yani bocorka soo muuqanaya soo dheer waaye dhuunta. Adam's apple waxa loogu bixiyay dadka qaar ay leeyihiin mu'arikhiinta iyo taariikhyahanada waxay leeyihiin yani waagii oo maaragtay sheeg nabi aadan calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay jannada ku jiray waatii geed la yidhaaha cunin uu cunay marka leeyihiin geedkii dhuunta uga dhagay sawirka oo meesha ka muuqanaya prominence dhuunta ka muuqanayana wuxuu yahay macnaha ama uu la mid yahay leeyihiin maxaa la dhahaa ii sheeg yani tufaaxii ama geedkii meeshaasi ku jiray dhuunta uga dhagay kasoo meesha kasoo muuqda marka waxa saas kale waa iska qisooyinka oo maaragtay aanan la xaqiijin karin ama la hubin aanan maaragtay la sheego oo taariikhda gale laakiin saxnaantooda aanan maaragtay markaas aan la dhihi karin way saxan yihiin. Which easily felt and often visible in adult males waxaa prominence-gan ama tubadan ama waxaan soo taagan ee ka muuqanayaan badanaa aad looga arkaa nimanka oo waaweyn dabcan adultiska ama ilmaha markuu cunugu qaangaaro wixii ka dambeeya oo nin weyn noqdo. sawirkan hadda halkan idinkaga muuqanaya waxa uu yahay larynx-kii oo gadaal laga soo sawiray. waxaa idiin muuqda laftii aan sheegayay kor sameynaysay ee la dhaho yod bone. yod bone-ta waa lafta keliya oo aanan ku dheganayn lafaha mar walba laf bay kusii xiran tahay iyadu waa lafta keliya oo aan wax laf kale kusii dheganayn yod bone ala dhahaa. waxaa halkan ka muuqda darbi weyn oo la yiraahdo epiglottis. waxaa halkan ka muuqda xuub weyn oo la yiraahdo thyroid membrane. waxaa halkan ka muuqda thyroid cartilage. waxaa idiin muuqda arytenoid cartilage. waxaa idiin muuqda cricoid cartilage. intiiba waa shay ka wada tilmaamay. okay waa sii soconaynaa maadaama aanan waqti badan haynin. cricoid cartilage waxa waaye imaamida labaad waxa ay ku taalaa iyadana oo ay ka hooseysaa thyroid cartilage-ka waxayna ka kooban tahay sidoo kaleeto hyaline cartilage. epiglottis-ka waxa waaye cartilage-ka nooc ka mid ah oo ka kooban fibroelastic ah wuxuuna ku dhegan yahay dabcan attached on a flexible stalk of the cartilage to the inner surface of the anterior wall of the thyroid cartilage wuxuu ku dhegan yahay qaybta gudaha xigta thyroid cartilage-ka meesheeda ay ka samayso movementiga ka samayn karto. wuxuu wax yar ka hooseeyaa godka oo maaragtay la yiraahdo thyroid notch-ka. it close off marka epiglottis-ku wuxuu daboolaa larynx-ka ayuu daboolaa marka oo swallowing la sameynayo wax la qaayo taasoo ilaalinaysa sanbabka ilaalinaysa in ay ku dhex dhacaan waxyaabaha foreign objects-ka qaar ka mid ah in sanbabka dhankiisa aado si looga ilaaliyo epiglottis-ka wuxuu daboolaa larynx-ka shaqada ay qabato pharynx yani larynx ay qabato waxa ugu horeeya kow production of sound cod in la sameeyo. the most important shaqada ugu muhiimsan ay qabato tan waaye. sound wuxuu leeyahay saddex property waa ogtihiin pitch volume iyo resonance uu leeyahay. pitch waxa waaye waxaa loo isticmaalaa codka dhuubnaantiisa loo isticmaalaa. volume-kana waa codka dhirirkiisa waaye. resonance-gana waxaa loo isticmaalaa toonka codka macnaha meesha uu kasoo baxayo iyo habdhaca yani ama luuqda waxyaabaha loo yaqaano. speech-ka
waa qaybta labaad ama shaqada labaad ee larynx ay qabato. This is produced when the sound produced by the vocal cords. Speech wuxuu samaysmaa markii oo vocal cords-ka oo codka soo saaro kadibna ay marka codka waxaa sameynaya oo wax isku dubarido waxaa manipulate gareeyo carabkii iyo daamankii iyo faruurihii ayaa waxay sameynayaan codka soo tufaayo laakiin waxa amplifier-ka ah oo maaragtay sameecadda camal u weyneynayo waa vocal cord-ka waayo oo ku yaala larynx-ka. shaqada saddexaad uu qabto waa reproduction of the lower respiratory tract sida caadiga ahba. structure-rada kala koreeya ayaa is ilaaliya oo iswaardiyeeya midba midku ka koreeyo ayuu wuxuu yahay jug dhowra dabcan maadaama ay kala sarreeyaan dhibna uusan usoo gudbi karaynin haddii uusan soo gaarin dhibkaasu maxaa la yidhaahdaa structure ka koreeyey. markii during swallowing the larynx moves upward larynx-ka sare ayuu u dhaqaaqayaa wuxuuna block gareynayaa marka blocking wuxuu daboolayaa the opening into from the pharynx tubadii aadaysay ama iridkii aadaya respiratory system-ka aadayay ayay xiraysaa marka. waxaa shaqada saddexaad waxa waaye passage way for air waa meel hawadu ay ka gudubto. shaqada afraad waaye waa meel hawadu ay marto. larynx wuxuu isku xiraa pharynx-ka oo kor xiga iyo trachea-da oo hoos xigta. ugu dambeeya waxa waaye qodobka ugu dambeeya waxa waaye humidifying filtering and warming la kululeeyo la diiramaadiyo la shaqshaqo wixii soo raaca hawada ama airka. This process marka continues as inspired air travel through the larynx. processkan ama qaabkani wuxuu ku socdaa hawadii la soo jiiday in maaragtay la marsiiyo waxa la yiraahdaa air condition horena u soo sheegnay maalin hore tan tilmaamnay. waxaanu bilaabeynaa trachea-da oo ah dabcan tubada dheer ee neefta qaada ee sambabada tagta. trachea waxaa kaloo loo yaqaanaa windpipe-na waa loo yaqaanaa ama khasabatul hawaa. is a continuation of the larynx waxay tahay waa larynx-kii oo sii socday waaye oo hoos usii degdegtay waxaana ay gaari kartaa ilaa iyo thoracic vertebraha shanaad 50 thoracic vertebra meel ku aadan. marka ay socoto muddo where it divides at the carina marka ay maraysa carina waxaa loo isticmaalaa ama loo yaqaanaa meesha oo trachea-da ay ka kala qaybsanto waaye laba qayb ka kala noqonayso marka waxaa lahaa carina kabuur aa maqli jirta inaan umaleyna. marka carina waxa waaye ii sheeg meesha ay trachea-da ka kala leexato waa macnaha marka laba qayb waxay kala aadaysaa mabka midigta mabka bidixda marka so carina waxay aadaysaa in markay kala qaybsanto laba qayb oo kala aadaya right and left larynx waxaana la kala lahaa right and left primary bronchi aa la kala lahaa. one bronchus wuxuu aadi doonaa mid walba to each larynx sambabkaas midba aadaysa sambab kale mid kala aadaysa. approximately dhirir ahaan waxaa lagu qiyaasaa inay trachea-da tahay 10 ilaa iyo 11 centimeter dhirir ahaan waxa ayna ku aadan tahay inta badan dhex bartanka median plane in front of the esophagus waxayna horta kaga taalaa oo ay ka horeysaa esophagus-ka hortiisa ayay ku taalaa macnaha. trachea-da sida structure-radii ka horreeyayba aan usoo tilmaami jirnay iyada structures ayaa ku gadaaman. structures ku gadaaman waxaa kala yihiin kow kor waxaa ka xiga larynx hoos waxaa ka xiga bronchi-ga dabcan kor waxaa ka xiga larynx-kii waa mugtahay larynx kadib trachea ahayd no kor marka waxaa ka xigta larynx hoos waxaa ka xigo iyada laftirkeeda sii kala qaybsami doonto waxay u kala baxdaa bronchi mo right left bronchi hoosteeda saas waaye. horey waxaa kasoo xigo anterior-keeda maadaama tuba dheer ay tahay horteeda waxay u kala baxeen hor kore iyo hor hoose ay u kala baxeen. marka upper part-ga qaybta oo anterior-ka oo upper part-ga ah waxaa ku jiro thyroid gland-ga qanjirka la yidhaha thyroid gland-ga markano markuu thyroid gland-ga moogtahay dhinaca midigna cadaa jiro cadna wuxuu jiro dhinaca bidixda dhexdan waxaa ku jirto bahal yaro isthmus la dhaho oo isku haya labada lafood isku haya oo isthmus la dhaho. marka isthmus-kaas wuxuu ku aadan yahay in the upper part of the anterior of the trachea. lower part-gana waxaa ku aadan waa hoos waa moogtahay lafta la yiraahdo sternum-ka ama laf sakaarta oo feeraha
isku xirta laf dhabarta laftan dhexda waaye laabta ku aadan iyo aortaha dabcan aag of aorta oo ah xididka wadnaha ka baxa meesha uu ka qalloocmo posteriorka waxaa gadaal ka xiga esophaguskii oo maaragtay separates trachea from the vertebral column waa esophagus ayaa gadaal kaga aadan gadaal asna waxaa kasii xiga vertebral column laf dhabarti laterally dhinacyada ama balbalada labada gees waxaa ka xigo the lungs waa marka uu hoos usoo dego waaye kor markuu joogana waxaa geesaha ka xiga lobes of the thyroid gland qanjirka la yiraahdo structure ahaan tracheada waxay ka kooban tahay 3 layer oo tissue ah, it composed of 3 layer of tissue waxaana ay tahay mar walbaba inay tahay mid aad u furan and held open mar walbana way iska furan tahay by between 16 and 20 incomplete ring of hyaline cartilage lying one above the other arjawahaasi ama cartilageskaasi kala sarsareeya laakiin C-shapedka ah C-shaped waxaa loo isticmaalaa dabcan waa structure suuragelinaya inay kala baxsanaato oo yaalin yani mogtahay arjawda markaa fiirisid waxa ay u kala bixi kartaa maxaa la yiraahdaa 16 xabaan Soomaali 16 ilaa 20 xabaan marka haddaa fiirisid tusaale ahaan waxay og yihiin C-shape waxa waaye saasoo kale ah waaye okay structure ahaan sawirka hore aad noogu tusaaleyn karaya sawir hore aan usoo aragnay ayuu tusayaa oo tracheada ka muuqatay waa kana waa arkaysiin oo mala tracheada gadaal ay ka imaataa si socod inta imaanee iyo inta ku egtaa mid dhexda ma banaan yahay midaana soo soconaysa idan inta ku hakanaytan tii kalena inta ku hakan yani dhabarka hadda gadaal laga soo wara mugtahay marka ayne waa kaana ama C yani wax saas kale taamale C shape afkaana u furan marka incomplete way macna saas laga wadayaa tirtiraha awe marka waxay kooban tahay structure oo maaragtay ii sheeg 16 ilaa 20 xabo oo maaragtay cartilage ah oo C shape ah oo yaqaan dabcan hal dhinac ka furan incomplete amal laga wadaa C shape oo isdul saaran the rings are incomplete posteriorly gadaal faraanti camal oo kale waaye gadaal way ka fudud furan yihiin macnaha halkaas where the trachea lies against the esophagus waa meesha marka iska saaran yihiin oo meeshaas gadaalo furan waa meesha iska saaran yihiin tracheada iyo esophagus iska saaran yihiin waa kana sawirkii inta badan aan tilmaameynay tracheadii oo inta usoo dheer kor waxa ka xigta laryngopharynx kadib inta waa kana dhulkaana waxa ku yaalo soonaha dhan anoogu yaalo waa ii sheeg larynxkii this is the low thyroid gland waa qanjirkii weynaa hoosta soo baxdid meesha waxa ku aadan tracheadii hore waxa ka xigay waa naga sheegayna aag of aorta waxa kaloo inta ka kala baxaa carina meeshan waaye mijideeda meeshaas ay ka kala qaybsamayso carina ala dhahaa tracheada ay noqonayaan bidix iyo midig saas u kala aadaysaa saas u soconaya marka
shaqada ay qabato trakeeyada waa maxay waxay ka qayb qaadataa support and buttons waxay caawisaa structure oo xoog leh waa is ceshanaya buttonsna waxaa loo isticmaalaa waa inay iska furnaataa carjawdu haddii ay wuxuu carjaw aysan ahaan lahayn maarkino trakeeyada isku dhex dhici lahayd macnaha marka neefta qofka ku xirmi lahayd markaaseeto marka muhiimadda carjaw looga dhigayba waxa waaye buttonsigaas in iska furnaato wac iska ahaato hawada si tartiiba oo xor ah ay meesha ugu marto tracheal cartilage hold the trachea permanently open waxa ay ka caawinaysaa carjawdaasi waxay ka caawinaysaa trakeeyada inay noqoto mid si joogta ah isaga furan waxaa kaloo qodobka labaad ah mucociliary scalator waxa ay leedahay unugyo yaryar ah oo tin camal oo kale u taagtaagan oo soo xaaqa xabka ama maaragtay mucosaha waxyaabaha meeshaasi ku samaysan marka respiratory-ga waa soo dhaweyn qofku soo qufaca soo tufaa markaas waa cuff reflex waxaa loo isticmaalaa waa shaqada saddexaad haddii oo waxyar ay irritate gareeyaan ama ay cariyaan ama ay xanteeyaan in lasoo qufici karo waa shaqada saddexaad ay qabato trakeeyada qodobka ugu dambeeya dabcan waa qodob respiratory airway-ga oo dhan tubooyinkan oo airwayska oo connecting airwayska laha dhan ay wada qabtaan waana air conditioning oo hawadii in la maaragtay xaaladeeda la qiimeeyo haddii qabowdahay warming loo sameeyo xoogaa yar la diiramiyo hadday qaleel tahayna la qooyo humidifying lagu sameeyo haddii ay waxa la socdaan oo wasti ama dusty ahna filtering in lagu sameeyo oo la shaqo shaqooyinkaas faraha badan oo dhan ayay noo qabataa aad iyo aad u mahadsantihiin intaasaan ku joojinaynaa maanta cashirkeennii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu